بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وأصلي وأسلم على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله ولا ليال وبركاته. سيدات أركيسان وحوي ولالكين محوها مصطفى عبدي ودروال بابورتا كشقيسه marka qashinka bilicda iyo markaas shirkada kibis waxa walaalkeen Mustafa mar walba arka kitaabkii quraanka ahaa ilaahi subhanahu wa ta'ala inoo soo dajiyay ciisadeena iyo sharafteena uu galiyay iyada oo marka gidaafadii inta lagu soo guro oo waalidka ay ku soo guraan sidoo kaas oo noocaas oo kala aragtaan ama ay biyihiiba ka daayaan in marka uu soo dhigo ay markaasi u soo dhiibaan yiraahdaan ku dara qashinka ku dara marka uu ku yiraahdo waa maxay waa kitaabkii quraanka miidaan ilaahay ka baqalayna yiraahdaan caruurtaas u gashay macnaha waa dare waxa weeye halkii ugu hooseysay weeyaan. marka bal waxyaabaha ugu cajabta badan oo arkay ayaynu weydiinayna Mustafa insha Allah ta'ala inuu inoo sheego iyada oo aan uga dhigayna insha Allah ta'ala tan baraarujin walaalaha ka shaqeeya qajinka iyo waalidada iyagu khashinka ururiya ee u dhiiba baabuurta si ay meelo fog ugu soo tuuraan. ilaahay hadaanu dhulkayna la gooy waba roonahayba hadalkii ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo kitaabkii qaaliga ahaa oo gidaafada uraysa laga soo ururayo mar walba waba roonahayba. markaas waliba waxaynu ka cabaraynaa abaar iyo muxuu ahaa waxbaana helay iyo walka warar Mustafa way waxa weeyaan anigu baabuurkan aan wadaa sax shaqaalahayga waxaan ogeysiiyay mid walba oo sheegay naam burqada carabi ku tahay carabi ay ku qoran tahay صح inaan raacin صح fuutignan gaara صح ayaan ku siiyaa tabeetu wax weeyaan anigu imka dhowr sanadood intaan joogay shirkadda u shaqeynayay نعم ilaa 5 sano صح waan ururinay ilaa 5 sano oo ururinaysa haye waan ururiyaa sheekaygaas oo aan isbaranay tirigaas isagu ogaaday anagoo suuqin ogaaday wuu weydiiyay صح بريها كمدا صح أيام تبع شيء صح وحسبي تبعتنا نقصتي ميش عم تدوى وي هاي عم تدوى وين وقتنا نطلع هاي تبعته شاقي ما كحد أوايه بلو قولي لك أوريا oo waxa soo dhab waxaad ka waranaysaa waa gidaafada ay ka dhaxdiisa tanfaskii isagoo qoyan oo biyuhu ayaan anu ka ururiya oo ku kala si halka dhaska warka inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un iyagoo sidaas biyuhu ayaan aqaltiyay haye waan la khajilay isagoo qoyan ilaa aan qallatiyo oo nadiifiyo tanfaska ka tuuro uma dhiiba shaqo ilaahay ku barakeeyo ilaahay ku barakeeyo marka waxa weeyaan dadkeeni abaara laga cabanaya gaasha laga cabanaya صح kitaabkii ilaahay inoo soo dejiyay ee uu nagu yiri ku dhaqma waka oo gidaafadaas laga helaa maalin walba soo tanfaskii iyo biyihii uu sito ilaahay ugu yeeran been ka sheegay waa dadkaygii oon xitaa waalidka anigu la xaadlay oon iri alla miidan ka baqanay kitaabka quraanka soo ubadka miidan keen soo dadka miidan ubadka miidan keen ku miidan badin maxaa hadana soo qaysugu biyo farada waxyaan subhanallah markay gabo ruux dumar ay ku dita ma shariid ku ridaba mar labaadka meel ogaan karaan waalidka guriga way ogaan kartaa waxa weeyaan xagga waalidka laftiisa ka socda marka taas waxay ku tusinaysaa sida ay dadku jahli ugu sugan yihiin waayo haday garanayaan qiimaha quraanka sida may sameeyeen waxa sidoo kale nala jooga oo imika maanta bacdan ka qabtay Mustafa waa gudoomiyihii marka shirkadda dayactirka kitaabka ilaahay subhanahu wa ta'ala xaaji Ibrahim way ku soo dhaweynaa xaaji Ibrahim fariinta aad marka u gudbinayso ummaddu maxay tahay adigoo laba kalmood ku koobay waxa weeye naam sheekh Jaabir in badan baan u ka hadlay quraankan culmo badan baan u sheegay in marka uu yaqaan maalmo wax quraan ma haysaa inta ilaa quraan ay meel bay diibaan Allahu akbar ciidan geeya waanu asurnaa صح markaan waxay war quraan ku diicay culimada ka hadla culimo ka hadlaysa ma jirto mid ka hadlaa jira astaghfirullah barada dhigayso aada siir qudhisu ka hadlay marka quraanka diisa soo deeyay hadaan dhulku nala gooyin ayuu bihaa wallahi ilaahay ku barakeeyo waxaan ugu dambeeytii waxaan leenahay oo aan u ducaynaa Mustafa waxaan ugu ducaynaynaa ilaahay umrigiisa inuu raajiyo cibaadada ilaahay ha u furo ubadka Allah iyo dhamaan
mustafa isagaa mas-uulka ah iyo cidda la shaqaynayso dhan kaalay soo joogsaadna halkan maasha allah walaalayaasheen waa shaqaalayaal u jajaban in kitaabka ilaahay ay ka saaraan gidaafada lagu soo ridayo oo ilaahay dartii ugu shaqaynaya waxaan leenahay ilaahay haydi barakeeyo insha allah dhammaanna waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu cibaadada inoo